inuu yahay nin miskiin oo dadka masaakiinta caawiya, laakiin reer somaliland aniga maanta haddii aan ahaan lahaa coldoon hala xiraan dhihi lahaa, coldoon daaqilka hala dhigo, coldoon hala xiraan dhihi lahaa miskiinka. been idinma sheegiyo mihi reer somaliland, laakiin haddii aan ahaan lahaa reer somaliland hala xiraan dhihi lahaa coldoon. sababta waan ii sheegaya, sababta ma adka. marka xoogaa soo badatiin baan idin sheegaya sababta aan u xiri lahaa coldoon haddii aan ahaan lahaa madaxweynaha somaliland for example, odayga boqolkiisa jira haddii aan ahaan lahaa sababta aan u xiri lahaa coldoon baan idin sheegaya. adi hadda waad iska qosleysaa, you don't know, qabiilistana mehi, laakiin sababtaan idin sheegaya. hataa dadka xiray coldoon 2 sano xukumay adiga qabiilistay kuleeyihiin, laakiin aniga qabiilista ila maahan, qaarkood badan ma ilaha qabiilista. caasimada dalkayga daawashada wacan iyo xamar daaqsinkeedii howlahu durdurayaan alloyaa mardaawada ku dalxiisa nabado. caasimada dalkayga daawashada wacan iyo xamar daaqsinkeedii howlahu durdurayaan alloyaa mardaawada ku dalxiisa nabado ku dakeeya nabado. dirirtii colaadii daawadoodii baa timi madaxweyne daacada. sababta aan u xiri lahaa coldoon haddii aan ahaan lahaa reer somaliland baan idin sheegaya. hadda heestaas waa dheerta xamar baan u qaaday, heese kalena waa u qaaday. dadka unuka xamar leh bay leeyihiin qaar, aniga mehi reer somaliland. marka maxaa u malaynaysaa reer somaliland haddii aan ahaan lahaa same sidaas oo kale dhihi lahaay. coldoon laakiin waa nin miskiin ah, wax badan ilaa 2 sano 3 sano uu shaqeynayay, markaas dadka barteen, dadka masaakiinta buu caawin jiray. burco kasoo bilaabay, muqdisho kama bilaabin, weligiisa qof reer xamra ma caawin. laakiin aniga coldoon munaafaqada reer xamar inuu xiran yahan aaminsana. farmaajo u tegay ayna ka leedihin, farmaajo u tegay sax. reer waqooyigana waa dad aada qabyaalada u jecel, waa dadooda qabiilistayaal ah. qabiilka maxaan ku rahdaa aada bay qofkooda maxaan ku rahdaa qof daaro ah raaco dameer bay u arkaan. marka waa qabiil isku duuban. been iyo ma sheegi. adiga hadda shalay ogaad calankan hadda maxaan ku rahdaa hadda ay wataana meel guryahooda iyo meel kasta ugu sharaxan, calankaas shalay adig aragtay oo calanka iiraan u eg. calan kaley lahaan jireen oo wallaahi ah jabaan waddankii la yihahdo calan u eg, calanka jabaan bay lahaan jireen. waa 25 sano ka hor, 25 sano ka hor bay maxay lahay. anaka dawlad baana waa dad jecel soomaali maxamed, talyaani iyo faransiis iyo ingiriis inay u kala qaybiyaan. anaka british somaliland, italian somaliland, waa sidaas weeyaan. wallahi been idiima sheegay, calankooda 25 sano ka hor calanka jabaan buu ekaa. jabaan waddanka la yihahdo calankiisa bay allahu akbar ku qorteen. waddankan asia ku yaalo nuclearka lagu dhufan jiray, maraykanka nuclearka ku dhufan jiray. marka waa dad heerkooda qabiilnimo intaas uu gaarsiisan yahay. marka cashar ha u noqoto wixii raacadee, wixii daarood salaame iyo dee hawiye hadduu soo salaami lahaa, hawiyana soo dhaweyn lahaa madaxweyne hawiyaha, wallahi lama xiran lahayn. marka waa dad qabyaalada aada u jecel, waa dad qabyaalada aaminsan, waa dad qabyaalad ay ka buuxdo. si haddii loo fiiriyayna ma qaldano dad qaldan baan u malayn jiray,
laakiin hadda markii aan maxaan ku rahdaa cilmi baaris sameeyey dad ka liitaa jiro dad ka liito haddii aad ammaantid ey inaad tahay kuu malaynayo dad aad iyo aad uga liito wallaahi oo bilaahi tala dad aad iyo aad uga liita reer somaliland baa jira been idinma sheegayo dad maxaan ku rahdaa dhiigga islaamka inuu daato macno weyn aanan la ahayn dad maxaan ku rahdaa xataa qabyaalada ka jecel baa jira reer somaliland markaa coldoon haddii la xiray labadiisa sana haska qaataan leeyahay aniga ilmaadaridiis baa xirtay ilmaadaridiis baa ku xirtay farmaajo maxaa u salaantay madaxweyne daarood ah been idinma sheegiy aan runtaan ka hadlayaa mar walbaan runtaan jeclaha inaan ka hadlo ninkaas qalad kuma xirnaan ani hadda leeyahay qabiiladiis waa israaceen 2 bilood bay tirsanayeen 2 bilood hadda maanta 2 sano xukumeen oo okay weeyaan madaxweyne daarood ah la doortay madaxweynahaas daarood oo la doortaa soo salaantay waa bunbuunis hawiye haddii la dooran lahaa wallahi lama xiran lahayn wallaahi oo bilaahi oo talah lama xiran lahayn been idinma sheegiy waa u qoslaysiin hadda aniga laakiin aniga mar walba xaqiiqdan jeclahay inaan ka hadlo asad dheer salaan sara shaafici waan ku salaamayaa aniga markasta runtaan jeclahay inaan ka hadlo hawiye daarood isaaq digil and mirif wax oo dhan ba israaci others soomaali weyn waa ii soomaali weyn runtaan jeclahay inaan ka hadlo dadka la yihahdo reer sheekh isaaq waa dad jecel dowlad inay iska dhigaan mar walba intii maxaan ku rahdaa aniga hadda aan aqliga lahaay oo dhanba waa dad jeclaa inay dowlad iska dhigaan aniga 91 wixii ka dambeeyaan aqlista dad ka liitaa jiro dad ka liitaa jiro been idinma sheegiyo oo dee isku haysta inay ka fiican yihiin wiilkaas miskiinka ah coldoon habraha maxaan ku rahdaa sawirkiisa soo saartay facebooka habrahaas baa xiray habrahaas baa maxaan ku rahdaa xarigga 2 sano ee la xiray coldoon ka dambeeyo been idinma sheegiyo habraha fitada waaweyn habraha maxaan ku rahdaa nooc kastaba habraha caatada habraha derer xamarka iyo derer koonfureedka u badan sawirkiisa soo saartay facebook habrahaas baa ka dambeeyo ninkaas miskiinka 2 sano in la xukumo been idinma sheegiyo oo aan garanay sababta ay ku taageerayaan ma garanaya sababta ay ku taageerayaan waa wadani baa maqlay waa wadani waa imis wadani waa tiimahaaga ka badan dadka dhan ba waa wadani ma tiraahid isagoo waraysi ka qaadayo baa aragtay do you know coldoon miyaa taqaanaa coldoon waa nin fiican laakiin waa bunbuuniseen sayid baa bunbuuniseen aniga xataa ay u kalifteen inaan bunbuuniyo marka 2 sano waxba maahan 2017 kan ku jirnaa 2018 waa la soo daynaya adiga dhowraata hadda way daawanaysaa 2 sano xarig ah baa la xukumay 2 sano xarig ah diino 2 sano xarig ah intay tahay waa 1 sano xarsiga 12 sac baa xisaabiya maalintii waa 2 maalmood marka coldoon 1 sano soo raaxaysanay 1 sano oo baashaar ah ka bacdi uu soo baxayaa waa wadani dhaha lugaha ugu sacbiya hawiyatiin futadu aqlignay kaga jira waan ogahay daarood ma xirin coldoon wallaahi oo bilaahi oo tallahi daarood ma xirin coldoon nin hawiyaha jecel buu ahaa daarood hawiyu jeclaa sababta farmaajo intaan la dooran kahor buu xamar aadi jiray miyaa la xiri jiray lama xiri jirina masaakiin buu caawinaya baa la dhihi jiray marka waa dad qabyaalad jecel wadaniyiin ah qabyaalada wax badan ka og si fiican runtii qabyaalada ugu dhaqmo reer sheekh isxaaq laakiin dowlad bay iska dhigaan 24 saac dowlad bay iska dhigaan mar walba markaa aragtid somaliland bay ku leeyihin somaliland waa ku sexdaan waana kusoo toosaan hal sano markaa baa la xiray 1 sano waqti dheer maahan halkaas sano coldoon waa sugi karnaa 100 coldoon baa soo baxayso 100 maana kumanaan kuna coldoon baa soo baxayso sanad ay kan la xirayaa saas caan ku noqonayo marka dadka xamar ka yimaaday dadka habraha maxaan ku rahdaa sawirka coldoon saartay fanaaniinta saartay sawirka coldoon fanaaniinta daaniga maxaan la hadlayaa dumarka oo kaleeta ah sawirka coldoon inta saarato dhan baan la hadlayaa inta futad aqliga ka galaan la hadlayaa coldoon ma taqaanida sawirkiisa ka saar sawirkaaga soo saaro wallaahi oo bilaahi oo tallahi inaadan coldoon aqoonin ma taqaanid coldoon waa nin fiican waa nin dadka masaakiinta caawiyo laakiin sawirkiisa ka qaad aniga reer qoy haddii aan ahaan lahaa oo aan arki lahaa qof kale oo qabiilo kale ah oo saartay sawirka in adeerkay waa xir lahaa
weliba 10 sano hal xiraan dhigla ben idin ma sheegay mid kala u qaado qabiilo kale taadiyaan arki lahaaya xabsi dheer hal xukuman dhihi lahaa gabar yaroo hadda Facebook waa laga saaraan marinaya wallahi Facebook aan ku ark gabar yar Hargeysa joogta ma arkinaya awdoon haddii la sii daayo aan la xirin dhagax baan ku dilaynaa beetir waa daanyeerkeena ugu weynaa dhagax baan ku dilaynaa wallahi beenadii ma sheegay marka awdoon sawirkiisa iyo bunbuunintiisa iyo naga yareeyo waa codsi weeyaan ma taqaanid wadani kuma noqonaysid sawirka awdoon oo aad soo saaratid Facebookaaga wadani kuma noqonaysid wallaahi oo billaahi oo talaadan wadani ku noqonaynin sawirka awdoon oo aad soo saaratay Facebooka wallaahi inaadan wadani ku noqonaynin ama Viberka iyo ama bunbuunisid iyo aniga hadda bunbuunintii aan bunbuuniyo dhan baan tirtirayaa taada kale tan wax kale aan idin sheegaya aniga heeso badan baan madaxweynaha Soomaaliya u qaaday laakiin aniga ma qaadi dooni fanaaniin baan u dhiibaya maybe some of them hadda way daawanayaan I don't care magacyadooda ma sheegay laakiin heesaha ay ko soo baxeen baa arkiisay laakiin aniga waxaan qaadi doona ma sababtoo Soomaali Maxamed haddii aad tihiin qabiilka ka jeceshin diinteena macaan oo islaamka ah wallaahi oo billaahi oo tallahi qabiilka ka jeceshin qaar badan xaaraan baad tihiin oo dee maxaan ku rahdaa qabiilkaas baa caabudiin oo ka jeceshihiin diinteena macaan marka aniga madax baan ahay madaxdana ma haysto heeso badan baan soo wadaa waa soo baxayaan markii ay soo baxaan baan bunbuunin doonaa laakiin codkeyga kuma qaadi dooni ma ku qaadi dooni sababtoo ah qof Soomaali Maxamed ugu cod fiican oo wax walbaba haddii aan isku darsado leema sacbin doono sababtoo ah qabiilkeyga wax aan ku hadlay waxaas dhan baa duuban yihiin cidi dhegeysanaysa malaha marka aniga fanaan oo buug oo kaleeta ah wax lagu qorta meehi xisaabta taas ku dar meehi aniga wixii aan qoro waxa aan qoro waa la qaadi doonaa laakiin qof kale qaadi doono maadaama qabiilada Soomaaliyeed oo dhanba ay maxaan ku raada qof crazy ay arkaan dad baan u dhiibaya heesayguna ka badan timahaaga ma faanay aniga I'm not like you maanta hadda saaka hees cusub aan kusoo kacay laakiin xaasidin baa u badantiin tuuga u badantiin wallaahi oo billaahi oo tallahi inaan ben idin ma sheegi wallaahi dad xun baa u badantiin Soomaali Maxamed haddii aad tihiin sababtaa sometimes Facebook waxaan kusoo qoraa waxa aan kusoo qoro intaasoo qof oo intay qaateen ama I don't know dad badan baan arkay oo erayadeeda isticmaalaya some of my words marka inaan wixii qarsadaa ka fiican hana u malayn heesayga dunidu waa galab carraw kaliya inaad tahay adiga inaa iga xumaatid darteed baan ku soo celceliyaa mar walba dunidu waa galab carraw ka badan aniga heesayga dunidu waa galab carraw laakiin dhowr adigoo kale taas ka badan ma ogido waa gabayada Carays Ciise iyo waa buraanburka hebelaaye iyo inaad tiraahdeen baa ka adagtiin dee dadka sida loo caayo maanta Aldoon free Aldoon baa leedahay free Aldoon baa maanta leedahay waxaas oo dhaqan xumo iska joojiya 2 sano waxa maaha waa sanad weeyaan ilmaadariis buu xiran yahay been markaas aaba dad kulliita amisom ay ku haysataa amisom baan haysataa markaas aan ka hadlaynaa Aldoon free Aldoon wallahi been idin ma sheegi amisom baan haysato shabaab baan haysato shabaab amisom gaajo maxaa noo haray waxba nooma harin markaas maxaa leedahay wiil oo dee ilmaadeeradiis u xiran baan leedahay maalin walba free Aldoon maxkamadiisa waa maalin hebel Aldoon waa sidaas Aldoon waa sidaas ahli iska dhiga caadi iska dhiga dadkaas waa dad isku duuban waa dad maxaan ku radaa idinka horumarsan reer xamed haddii aad tihiin aniga maanta horumar inaan gaari lahaa baan aaminsanahay calaykum salaam mawlid maanta horumar inaan gaari lahaa baan aaminsanahay haddii aan u qaadi lahaa heeso Hargeysa haddii aan u qaadi lahaa laakiin hal mar baa waxa mar ka sheegtay wax kasta oo fiican aad sheegtid waa qashin
باتاينتين فتضوا قبل نكجل فتضوا قبل نكجل رحمة هديتين dadka madaxu qabiilka galay ninka laakiin futadu ninka galay qabiil wallahi been idin ma sheegay futada ma arag buu qabiil ninka galay wax kastaba qabiil bani kala weyn qabiil bani ma laga yaabaa had in ay u nacay Yurubgeeni mar wax ka sheegay heblaayo wax ka sheegay hebel buu wax ka sheegay aqligiina waa intaas weeyaan xigmadiina oo dhan buu intaa heblaayo waxaas jeceshay daahir cali soo waxaas uu jecel yahay anigana waan jeclahay qaar baa maxay lahaayeen dowladda farmaajo waa dowlad daarood waan arki doonaa dowlad daarood iyo waxa ay tahay waan arki doonaa hadda 4 sano oo hartay 4 sano aniga waan u heesi doonaa fanaanin baan u dhiibi doonaa heesayga hadda qaar baa soo baxay muusigii laxankii wixii dhan la saaray qaarkood waan iloobay laakiin farmaajo aad baan u taageersanaa waa madaxweynahayga adigana waa madaxweynahayga diid ama yeel I don't care marka ninkaas miskiinka coldoon hal sii daay intaas hadalkii ku soo gabagabeynaya intaas baan u soo galay aniga calanka buluugana 100 hees baan u qaaday 100 hees baan u qaaday Faysal Cali Waraabo waa taqaaniin ninka la yiraahdo ninka waa loo yiri aniga coldoon waa toogan lahaa waa crazy man way laakiin hal wax baan ku taageeraa mar walba markuu ka hadlo wallahi aan been idin sheegay siyaasiyiinta Soomaalida kale dhan kuma taageerin laakiin ninkaas waa hal wax kaliya ku taageeraa calanka buluuga ah Soomaaliya waa inaan tuurnaa buu yiraahdaa calanka buluuga waa in la tuuraa dhiig badan baa daatay waan isnacnay calankaas waa inaan tuurnaa waa wax aan ku raacsanahay waa qof aad iyo aad u aqli badan si hadii marka aan aad u qiimeeyay qof waa qabiilista laakiin dad badan buu ka aqli badan yahay dad badan oo wadan iska dhigo ka aqli badan yahay calanka buluuga hala tuur hadii yiraahdo aniga maxaan ku raada kuma diidani sababta xaysidiin baa u badantiin Soomaali Maxamed hadii ay tiin xaysidiin baa u badantiin qurunka jecel arfarmaajiige Yurubgeeni maxaan ku raada liiday ku baashaalaysa waxaas xigmadiin intaas bay ku soo aroortay dad xigmadooda intaas ay ku soo aroortay baatiin xasan sheekh buu wax ka sheegay qofkiina u nacdin heblaayo wax ka sheegay inuu nacdin xigmadiina aqligiina dhan waa intaas calanka buluugana inaan iska bedelno baan madaxweyne farmaajo kula talinaya calan kale inaan qaadano calanka maxaan ku raada qaybta buluuga cagaar aan ka dhigno ama gaduud baan ka dhigno gaduud iyo xidig cas mayo xidig cad ama calan kale to nooc kale ah wallahi oo billahi taala idinka calan baa wax weyn niila ah viva ama hees u qaaday calanka buluuga ah hees muu qaaday calanka buluuga ah adiga hees muu qaaday calanka buluuga ah miyaa u qaaday hees calanka buluuga ah umaadan qaadan calanka buluuga jeclahay arxamar anuka xamar leh calanka buluuga waa jeclahay allahan calanka buluuga oo dhintaa unuka xamar leh int aqligiina dhan intaas buu noqday calanka buluuga miyaa hoostayn anaka waa hoosnaa heesa badan baan u qaadnay heesa badan baan u qaaday wallahi beenna maaha calanka buluuga ku faanaysid ama adiga u heesta xamarta aa ku faanaysid soo ma ogid maalin walba qarax aan ka dhaco oo de maxaan ku raahdaa xataa al-shabaab iyo Soomaali qarax haddii aysan dhigin ajnabiga joogo de lacagta badan qaato de maxaan ku raahdaa midkii muxuu qaataa $1,200 buu qaataa oo Soomaaliya joogto $1,200 cuntadiisa hubkiisa wixiisa dhan bay u dheeryihiin aykaaba qarax dhigayaan ma ogido ciidanka nabad ilaalinta Soomaaliya loo keenay qarax aykaaba dhigayaan hadii rabaan bug qaraxa dhacay shabaabaa sheegatay laakiin waaba la dhigay qaraxa waaba la dhigay dadaa dhigeen oo mas-uuliyiinta maxaan ku rahdaa ani mas-uuliyiin dadka maxaan ku rahdaa oo hadda xeelka loo dhiibay mas-uuliyiin kullooda ma aqaani sababtoo waa dad lagu shaqe ciidamada nabad ilaalinta u joogaaba dhigayaan hadday doonaan waa ciidan hub fiican haysta waa ciidan tababaran Soomaaliya maxaan ku rahdaa warshad ahaan bay u joogaan warshadaas soo xirmaysa ma ogido haddii ay qarax dhigeen marka codona la xiray iyo waxa ku mashquulaysid waxyaabo ka waaweyn baa Soomaaliya ka socdaan ciidanka Soomaaliya heesa badan baan u soo wadaa waan guubaabin doonaa aniga wax
meel ka fog baan higsanaya aniga maxaan ku rahda coldoon hala sii daayay iyo aniga hadafkii waa ka wenya I'm not like you aniga sidaadoo kale tamey marka calanka buluugana waan kusoo celinayaa marka calankaas buluuga ah inti aan haysanay dhiig badan baa daatay inti aan haysanay waan isnacnay wax faa'iido ah kuma haysano been idinma sheegay aniga faa'iido calankaas buluuga ah hadda calanka buluuga gurigayga haddii aan ku sharaxo ma lacag baa imaanayso ma cunta ay imaanayso maxaa helaya waxba ma helaayo adiga laakiin calanka buluuga inay u dhimanaysidaa laga yaaba waa maro waayo marka dambe waan soo gala lifeka soo gala anigoo jeexayaan soo galayaa anigoo gebigiisaba jeexayo fanaanad calanka buluuga ku sawirnaan jirta waan tuuray been idiima sheegay sababtaa waa kaa wadininsana adiga qiimo kula leeyahay laakiin aniga qiimo iyo sharaf midkoodna ilama laha mara xuno intii aan haysanay waxba aan naga soo gelin baan aaminsanahay inuu yahay laakiin waagi hore waan jeclaan jiray waagi horta qof qabil oo calankaas buluuga jecel baan ahaan jiray laakiin hadda ma jecli I don't like calanka buluuga ah aada iyo aad baan u dhibca wuu idhibaa aragiisa xataa idhibo xataa wallahi been idinma sheegays waan nacay gaajaan u dhimanaynaa hadda sanadkan 2017 la marayaa gaajaan u dhimanaynaa baddi africa ugu dheereed baan leenahay isku luuqad baan nahay isku diin baan nahay marka soomaaliya waa mid baan leeyahay soomaaliya laba maan waa mid weeyaan soomaaliya laakiin calankaas buluuga ah heesaha aan u sameeyey aan iska bedelno waan qiiroodaa markaan soo xasuusta heesaha qaarkood aan u tiriyey calankayga wacaane caraf iyo udgoon laho calankayga wacaane caraf iyo udgoon laho cadowkaama guul helo cududkaa difaacdiyo hoga camiran hawaayino cimrigaana taagno waxaad ku caan tahay ciideeda hooyo cadkiyo daruurtiyo cirka sare ka bilig leh ku cayaar hawada oo calanyaho hadheelin marka calankaas hadda aad jeceshaani heeso badan baan u sameeyey heestaas kelima heeso kaloo badan baan u sameeyey heestaas sarxankeeda xitaa ma keeni karin laakiin some fanaaniinta waa keeni karaan aniga fanaan mey calankaas buluuga ah mar kalean kusoo celinayaa soomaali maxamed way maqlaysiin calanka marada ah buluug iyo caddaanka xidigta cad ee dee caloosha uga jirta calanka buluuga ah aan iska bedelno wax kaletaan la imaano soomaalina waa mid weeyaan soomaali kulligiinna waan idin salaamayaa dhammaantiin coldoon dee hal sano keliya la xiray hal sano keliya la xiray anigi waa inay bunbunisiin coldoon intuu xiran yahay waa in anigay bunbunisiin sababta aniga maalin kasta hees baan la imaanayaa every time hees baan la imaanayaa waa in anigay bunbunisiin sababto aniga sida coldoon oo kaleeto dadka masaakiinta inaan mar walba dhinacooda inaan noqdaan jecla qof buuran iyo qof caata hadday isdiriraan qof dee xoog lahay qof caata hadday isdiriraan inta badan qofka xaag oo dee caatada dee aan tabarta badnayn baan jeclahay inaan uhiiriyo qofka mar walba dulman baan jeclahay inaan uhiiriyo marka coldoon inta uu xiran yahay sanadka uu xiran yahay 2 sanaa la xukumay 2 sano maxaan ku rahdaa waa 1 sano weeyaan sababtoo ah waa 2 sano xariga waa 1 sano caadi ah sanadkaas waa in aniga ii sacbiseen aniga heesahayga jaceylkii niimo maqashiinayay heesahii intaan ka soo galo maxaan ku rahdaa life kama qayb qaadayay intii aan hadda ka qaaday waxba ila ma adiga wax weyn bay kula tahay dunidu waa galab caraaw galgalad baa lagu jiraa gafkaasama loo arkaa gartaa ben la akriyaa gadaal baa loo socdaa gudnimada waa loo bogaa gargaare baabaxsha gaaladu garabku ma aha garboodkeenii gadoon gaaraadkoodii xumaa gacmahayay kala rogahaan galadee baan sugnahaa gacmaha ayaan hoorsanaa
gidaar baan ku waa dheerta marka aniga heesahayga ka badan dunidu waa galab carab laakiin adigoo kaleeto fucking jealous ah baa badan ma ogido marka hataa haddii aan qaaday inaan intaa qoritidba haddii aragti sheeganaysaa yaa og marka aniga wixayga fanaanin baan usoo dhiibayaa wixiygoo markaas la qaaday baan idin soo saari doonaa videoga daawadaan dhihi doonaa soomaali maryooley laakiin aniga inaan hees intaa hees niisoo qaadqaado aniga hadda qeylo waa i qarxday ku farxa makana qeylo waa i qarxday coldoonna waan ka xumaa in la xiray laakiin habraha sawirkiisa isticmaalay habraha maalin walba dee maxaan ku raha dee dadka aqliga ah habrahan sheegaya aniga markii aan lahaa dunidu waa galab caraawi heeso badan markii aan qalqaaday life ka qalqaaday ayagoo idaawanayo yaqaana aan ii sacbinayn dadkaas baan la hadlayaa dulli baa tihiin coldoon in la xiran idinkaa ka dambeeyo dadka sawirkiisa isticmaalayay ninkaas miskiinka laba san in loo xukumo idinkaa ka dambeeyo 2 sanana maaha waa sanad weeyaan waqtiga caadiga ah laakiin waa la soo daynaya sanadka bacdi hadduu ilaahay dimo heesaha farmaajo aan usoo wadana waa badan yihiin heesaha jaceylka aan soo wadana waa ka badan yihiinba kulligeen waan idin wada salaamayaa asalaamu calaykum